السلام عليكم. halkan waa Hanweyn Media hoyga cilmiga iyo tiknoolajiyada. Haddii aad jeceshahay horumarkeena, fadlan channelkan subscribe inoo dheh, kuna xirnaa goor kasta oo noqon dhiirigeliyaheena koowaad. waad ku mahadsan tahay booqashadaada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waana wanaagsan daawadayaasheena qiimaha iyo qaayaha naga mudan meel walba aad joogtaan. waxaad ku soo dhawaataan muuqaal cusub. muuqaalkan insha Allah waxaan ku baran doonaa qaabka loo soo geliyo muuqaal kanaalkaaga YouTube. balse daawade haddii ay tahay markii ugu horreysay oo sabaqo channelkeen Hanweyn Media, waxaan ka codsanayaa inaad subscribe inoo saarto, sidoo kale aad furto gambeelka si aad u noqoto qofka ugu horreeya ee mar waliba hela muuqaaladeena cusub. sidoo kale ha ilmaamin inaad like, share iyo comment aad inoo siiso muuqaalkan. mahadsanid, weligaana guuleyso. soo dhaw markale daawade. dabcan sidaad ku soo maqasho dhaca muuqaalkan casharkan waxaan ku baran doonaa insha Allah qaabka muuqaal loo soo geliyo kanaalkaaga YouTube-ka. dabcan marka hore waxaan qasbanaa inaan soo kicino kanaalkeena. waxaad soo gashaa qaybta YouTube-ka, halkan geeska ay ku taal calaamada ku dhufo jugsi. marka uu sidan kuugu soo baxana waxaad ku dhufataa switch account, kadibna waxaad soo kicisaa Gmail-ka aad ku samaysatay kanaalkaaga adigoo ka dooranaya qaybtan hoose ku qoran tahay add account. dabcan qaybtan waxaad gelinaysaa email-kaaga, kadibna kastine qaybtan waxaad gelinaysaa lambar sireedkaaga. markii aad buuxisan waxaad leedahay next. dabcan iminka waan soo kicina kanaalkeena. waxaad imaataa calaamada kanaalka oo ah xarafka S qaybtan midig dhanka kore, halkan ku dhufo, kadib waxaad ka doorataa your channel. dabcan waa kanaalkeena. waxaan haysanaa 1 subscriber, wax muuqaal ahan kuma jiro. marka si aan u soo gelino muuqaal waxaad imaataa qaybtan kore, halkan ay ku taal calaamada balaaska iyo sumada videoga, halkaa ku dhufo, kadibna waxaad ka doorataa upload video. markaad imaato qaybtan waxaad ka dooranaysaa halkan ay ku taal calaamada buluga ah kuna qoran tahay select files, halkaa ku dhufo, kadibna waxaad raadinaysaa muuqaalkaad rabto inaad soo geliso halka uu ku jiro, kadibna soo geli oo laba jeer klik ku sii ama open dheh. markuu halkaa ku keeno dabcan qaybtan hore waa title-ka ama ciwaanka muuqaalkaaga. qaybtan hoose ku taal description waxaad gelinaysaa faahfaahin ku saabsan muuqaalkaaga ama faahfaahin guud oo ku saabsan kanaalkaaga. kadib hoos u soo rog, waxaad imaataa qaybtan ay ku taalo thumbnail. dabcan thumbnail wax kale ma aha, waa sawirka ku dahaaran ama dul saaran muuqaalada YouTube-ka lasoo dhigo. laba doorasho aad haysataa. halkan waa inaad soo gelisaa thumbnail aad adigu abuuratay kuna jiro computerkaaga. qaybahana waa thumbnail laga soo jarjaray muuqaalka. haddii aad haysato mid aad samaysatayna waxaad ku dhufanaysaa qaybtan ay ku qoran tahay upload thumbnail. marka halkan loogu dhufo, kadib waxaad raadinaysaa halka uu ku jiro. dabcan marka aad soo gelisaa halkan ay kusoo muuqan doonaa, sidoo kalena halkan isagoo weyn. kadib hoos u soco, halkan waxaad abuuraysaa playlist. dabcan qaybtaana waxaa loogu talagalay in lagu sameeyo foldaradaasoo lagu kala duwayo muuqaalada isla markaana lagu kala soocaayo. marka waxaad imaanaysaa qaybtan ay ku qoran tahay select, halkan ku dhufo, kadibna waxaad abuurtaa playlist cusub. waxaad ku dhufanaysaa halkan create playlist. dabcan qasab maaha inaad abuurto muuqaalkaas, haddii aad abuurina waa soo dhigmayaa. balse adiga ku fiican tahay in muuqaaladaadu ay kala duwan yihiin
laga yaabo marka inaad ka hadlayso barnaamijyo kala duwan iyo ciwaano kala gedisan marka waxa aad u fiican in ciwaan kasta aad u samayso folder u gaar ah marka halkan waxaad gelinaysaa folderka magaciisa soo waxaan leeyahay cilmi kadibna waxaan leenahay create kadib halkaas tick saar taasna macnaheedu waxay tahay in muuqaalka la gelin doono folderka cilmi kadibna dhandhe hoos u soo soco waxaad ku dhafataa qaybta ay ku qoran tahay show more weli hoos u soo rog waxaad imaataa qaybtan loo yaqaano tags qaybtan tags waxay ka caawinaysaa in daawadayaasha ay soo raadiyaan muuqaalkaaga marka halkan waxaad gelinaysaa qaab kasta oo lagu soo raadin karo muuqaalkaaga marka halkan waxaad gelinaysaa qoraalo badan oo aad leedahay dadka raadinaya muuqaalkan waxay ku qori karaan qaybta searching-ka marka soqaal qortan waxaad ku soo xiraysaa comma ama hakad dabcan waxaa aadna u fiican inta aadan halkan ku qorin ka hor inaad soo diyaarsato dhammaan qoraaladan kadibna halkan kaliya aad ku dhahdo best marka sidaas ayaad u sii wadi kartaa dabcan aniga imka ma rabo inaan badiyo waayo muuqaalkan hadafkiisu waa in kaliya aan ku baranno qaabka tagska loo qoro kadib hoos u soo rog dabcan qaybtan category-na waa in aad sheegto muuqaalkaaga waxa uu ku saabsan yahay haddii uu ku saabsan yahay filimaan music xayawaano ciyaaro game waxyaabo qosol ama maad ah iyo sidoo kale madadaalo dabcan qaybtan hoose halkan tagta saaran tahayna waxaa la muujinayaa dadka muuqaalkaaga daawaday ama like-ta ku saaray ama dislike-ka ku saaray haddii aad ka tagi qaadan macnaheedu waxay tahay marka doontid marka halkan tagka ku saarnaato kadib waxaad ku dhufanaysaa halkan ay ku taalo next okay dabcan waxay inuu qaybtan muhiim waaye dabcan muuqaalka marka aad sameynayso wuxuu leeyahay ujeedo haddii aad ugu talagashay muuqaalka inay daawadaan carruurtan waxaad ku dhufanaysaa halkan haddii aadan ugu talagalin inay carruur daawadaan waxaad ku dhufanaysaa qaybtan no marka anaga no dheh kadibna next qaybta labaad waa video elements halkan waxaa ku jira 3 doorasho qaybta koowaad waa subtitles waana in muuqaalkaaga lagu soo daro qayb yar oo tarjumaad ah isla markaana tarjumaysa luqadda muuqaalkaaga dabcan haddii aad hayso ad ayaad leedahay haddii aadan haynna muhiim maaha qaybta labaadna waa end screen wax kale maaha muuqaalkaaga marka uu dhammaanayo waxay daawadayaasha u suurtagelinaysaa inay usoo bandhigto muuqaalo kooban iyo calaamadda janaalkaaga si aad halkaas ugu hesho subscribe ama aad muuqaalkaaga ugu hesho views dheeri ah qayb saddexaadna oo loo yaqaano ad cards waa in muuqaalkaaga inta uu soconayo dhexdiisa aad soo geliso muuqaalo kale si markaa dadka ay u helaan muuqaalkaas muuqaal la xiriira haddii aad haystana halka aad ku dhufanaysaa hadda maadaama annaga muuqaalkeena cusub yahay wax muuqaalo la ziyaado dheeriya ma hayno marka sidan ayaan ku dhaafaynaa kadib waxaad ku dhufanaysaa qaybtan ay ku taalo next dabcan qaybtan saddexaad oo loo yaqaano checksna waxay mar kastaba hubinaysaa waxyaabo ka kooban yahay muuqaalkaaga in adiga xuquuq ahaan aad leedahay iyo in qof kale uu leeyahay marka waxaa muhiim ah muuqaalada aad halkaas soo gelinaysa inaad iska hubiso inaad adigu leedahay ama ay yihiin muuqaalo free ah oo wax copyright aan lahayn daca marka ay tag saaran tahay macnaheedu waxay tahay in lagu xaqiijiyo muuqaalkan inaad adigu leedahay marka kadib waxaad ku dhufanaysaa halka ay ku taalo next kadib waxaad imaanaysaa qaybta ugu dambaysa visibility ah
طبعا qaybta koowaad ee private macnaheedu waxay tahay muuqaalkan inaad daawan karto adiga iyo qaar ka mid ah asxaabtaada waliba dad aad adigu dooratay qaybta labaadna unlisted macnaheedu waxay tahay muuqaalkan waxaan daawan karaa oo kaliya qof kasta oo linkiga muuqaalkan aad u dirtay ugu dambeyn qaybta ugu muhiimsan waa public halkan haddii ku dhufan maxaa dhacayo muuqaalkan waxaan daawan karaa qof kasta marka public halka ku dhufo kadibna publish leh okay hadda hawsha waan gabagabeynay muuqaalkeena waa la soo dhigay kanaalkeena kadib si aad u hubisana kanaalkaaga ku laabo adigoo calaamad dusheeda dul istaagayo kana dooranayo your channel dabcan muuqaalkeena waa kana kanaalka imika la soo geliyay waan ku guuleysanay hawsha ahayd inaan soo gelino muuqaalkeena ugu horeeya kanaalkeena cusub waxaan rajaynayaa muuqaalkan aad ka faa'iidaysato markaan aad ku barato qaabka la soo geliyo muuqaalkaaga ugu horeeyo kanaalkaaga cusub ee YouTube-ka haddaba walaal muuqaalka intaadan ka bixin waxaan kaa codsanaynaa haddii aad ku cusub tahay kanaalka inaad subscribe noo saarto muuqaalkan aad like noo siiso waad ku maansantahay dabcan daawashada muuqaalkeena muuqaalka xiga intaan kulmi doono waa walaalkiin Cabdirasaaq Cabdullaahi oo ku dhaafay sida ay nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi وبركاته